أنا waxaan kamid ahay odayaasha koonfurta ka yimid marka waxaan rabaa magacyada kulay ninkii civil society ku hadlayay sheegay odayaasha magacyadooda marka waxaan rabaa inaan laakiin idin sheego odayaasha aan ku socono guddi waxaan ka koobanahay 9 qof ah guddigan waxay ka kala socdaan in Galmudug Hirshabeelle Banaadir iyo Koonfur Galbeed intaasan ka wada soconaa iyo akhyaaray anaga in muddo 5 casho aan waxaan soo joognay in Muqdisho aan wada hadlaynay ilaahana waafajiyay inaan guddigeena 9 qof soo raacno alxamdulillah waa xilli fiican ilaahna keenay in war hore aan imaanay ahayd laakiin saaqaadka ilaaha leh waxaan u soconana waxa waaye Suldaan Mustafa sheegay qeer Allah siiyo waxaan u soconaa waxa waaye dadka ilmaheena awlaadeena walaalaheena labada dhinac oo xagga dibku ku gaaray wiilasha ku baabay in dhiigooda la joojiyo waan dareemeynaa hadallada soo yeerayo iyo su'aalaha imaanayso laakiin waxaan u soconaa hadda anaga waxay ahayd kaliya in aan xog waraysi u imaano aragno meesha dibka ka dhacay xaaladeeda aan qiimeeno kadibna aan baxno dhanka kale aan tagno anagoo odayaal Soomaaliyeed ah hal waxna waan ka saarnaa meesha wax siyaasad la yiraahdo inaanan ka hadlin siyaasi aan la fadhiisan siyaasi aan kala hadlin issue siyaasadda dhanaan iska dhignay kaliya waxaan danaynaynaa haduu Ilaahay raado inuu Ilaahayna waafajiyo Ramadaanka fadligiisana Ilaahay laga aqbalo in meeshaas dagaalka ka socdo ummadaas masaakiinta ku baabees in dagaalkaas la joojiyo dhiigaas muslimka daadanay la joojiyo taasaan horta u soconaa Ilaahana ka baryana inuu Ilaahayna la galo Ilaahayna aqbal ka dhigo Ramadaanka fadligiisa marka hadalka ma rabo inaan ku sii dheeraado anaga missionkeena u socono kaas waay dad badan ayaa jiro social media wax ka sheegayo missionka aan u soconana inuu yahay mission impossible waan ognahay laakiin xaq Ilaahay wax ka sakir galaan marka Ilaahan ka baryana inuu Ilaahay noo fududeeyo annagana waxay noo tahay sharaf karaamay noo tahay hadda markaan la ascaanood aadaynin waxa lagu dhahay iyo si kasto aan ku joogi karno aan noola sheegay garaadiyada iyo ismada aan u tagnay oo intana nagu soo dhaweeyay qaarkood dhowr 10 sano naqaana waxay yihiin aan ognahay xaaladooda ognahay dadaan saaxiibnahay waay marka kamana nafjeclaysanayna dadka reer ascaanood aan risaasan meesha ku tagnay marka waxaan u baahanahay akhyaaray khayr Allah idin siiyo qof kasto muslim ah ha ka shaqeeyo sulxu ha ka shaqeeyo nabadda hal ogaado adduunkan safar lagu yahay qabrigaasna cid kula galayso malaha Puntland aan ka imid iyo Koonfur Galbeed aan ka imid marka godka gashay adii camalkaaga waay qof kasto bini'aadan ah qulubta Ilaaha daalacanayo camalka saalaxa ha laga shaqeeyo nabadda sidii deegaanka iyo dalka Soomaaliya Ilaahay nabad noogu dhigi lahaa marka intaas hadal ku soo koobi lahaa mar rabo inaan sii dheereeyo khayr Allah idin siiyo waxaan ugu mahadcelinayaa hay'adda BDRC afurkan qiimaha leh ajir xasan Allah idinka siiyo idinkana aad iyo aad u mahadsantiin